iyadoo ciidamada ammaanka dowlad goboleedka Hirshabelle ay ka duulayaan amar ka soo baxay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle mudane Cali Guudlaaw Xuseen oo ahayd sidii loola dagaalami lahaa loona dabarjari lahaa muqaadaraadka xashiishada khamriga iyo taabuuga ayaa waxaa gaashaanka u duruuray arrinka ciidamada booliska dowlad goboleedka Hirshabelle nabad sugidda ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed guutada saddexaad qaybta 27aad ayaa waxaa habeennimadii xalay ay soo qabteen xashiishad tiradiisu ay gaarayso 382 kiilo. ciidamada ammaanka dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa sheegay in howlgalka ay sii wadi doonaan. tirada xashiishka la soo qabtay ayaa waxaa lagu wareejiyay taliyaha saldhigga booliska degmada Jowhar Bashiir Xasan Xalfooy. taliyaha saldhigga booliska degmada Jowhar Bashiir Xasan Xalfooy ayaa ugu horeyn goobta ka hadlay. waxaa ilaahay ciidamada qalabka sida ee ka howlgala Jowhar ku guuleeyay muqaadaraadkan tirada badan leh ee ummadda lagu marhabaaminayo ee dadka lagu baabeenayo waxaa meeshaan ku soo dhaweynaa ciidamada hawshan soo qabtay aad u mahadsan yihiin waxa waaye ilaahay ajir ha ka siiyo waxaana ummadda lagu qaribay ninka soo qabtay ajir uu ka ilaahay ajir ha ka siiyo waxa waaye ummaddaas wixii wax u taraayo wax loo keenaa wax u tarayn ee lagu baabeenaa dadka keenayna ilaahay iimaanka geliyo. sidoo kale waxaa asan dhinaciisa ka hadlay gudoomiyaha degmada Jowhar Asmaan Maxamed Mukhtaar Baarey. ciidamada qalabka sida saraakiisha kala duwan dableyda iyo dhammaan cid kasto gacan ka geysatay howlgalkan maalmahan socdo. hadda waxaad arkaysiin in howlgalka caawa la haayo waxa xashiish meeshan yaalo waa sitay waa dhantahay sitay wallahi wax laga xumaado waaye waxaan leeyahay aad u maasantiin waxaad mudaysan doontiin hadduu al yiraahdo abaalmarin oo la yaqaano cid kasto ay ku dhiirato waliba inay soo qabato hadduu shacab yahay hataa inuu soo qabtaan aan dhiirigelinta sameyn doonaa. ugu dambeyn kusimaha gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Maxamed Cabdi Sheekh Xandow ayaa ciidamada howlgallada ay wadaan ugu mahad celiyay. hadaladiisina waxaa ka mid ah sida tan: insha Allah hasdhiganina wax badan baa qabateen wax badan idin laaban haddii maanta aan ka guuleysanay qoladooyinkii xashiishka iyo maxay ahayd iyo muqaadaraadka waxaan rajaynaynaa in haddana maalmaha ka xiga aan sameyn doono howlgallo kaas ka duwan oo ah qolooyinka mar walba u shaqo taga amba u shir taga amba aada amba xukunka u doonta amba la macaamilo qolada argagixisada al-shabaabkan waxaan rabaa in sidoo kale ayagana loo zuuliyo. aad u mahadsantiin dhammaan saraakiisha waa idin mahad celinaynaa sidii gudoomiyaha degmada sheegeen abaalmarintii iyo farxadiina iyo horumarkiina iyo maalintaas farxadda aan wada qaadan doonana way dhici doontaa duulada maalmaha soo socda. saraakiisha qaybaha kala duwan waxaa leeyahay dhammaantiin mahadda idinka gaarta aad u mahadsantiin hawshiina laabo waxaan aad ugu mahad celinayaa dhammaan saraakiisha qaybaha kala duwan ee ciidamada ee heer iyo habeen u taagan inay maalin walba iyo habeen walba u taagan yihiin in ay suuliyaan waxyaabaha munkarka ama dadka mar walba lagu dhibaateena aadaan idinkaga mahad celinaa. jiilka hadda soo baxaya ee ku dabarjari lahaayeen waxaana dhabarka u dhigtay in agabka iyo muqaadaraadka la dabarjaro saraakiisha laamaha amniga qaybahooda kala duwan. Liibaan Cabdulle Maxamed, Liibaan Lakimaan Soomaali Cable TV, caasimad dowlad goboleedka Hirshabelle, magaalada Jowhar.